wuxuu ku bilaabanayaa Nick iyo xaaskiisa Maggie waxay nolol farxad leh kula nool yihiin carruurtooda isla iyo Makis. Subaxyada ka mid ah, Maggie waxaa ku dhacaya wadno xanuun waxaana la geynayaa isbitaalka. Waxay ku jiraysaa dhowr maalmood iyadoo sugaysa khaliin beddelida wadnaha. Nolosha Nick waxaa mid adag ka dhigaya inuu shaqeeyo misna daryeelo carruurtiisa. Habeenada ka mid ah ayuu carruurta u kaxaystay bandhig ay samaysay Cobble Industries oo soo saarto aaladaha caaqilka ah si bini'aadamka ay uga caawiyaan hawl maalmeedkooda ama xitaa shaqooyinka adag. Nick wuxuu bilaabay inuu ka fikiro inuu helo mid ka mid ah oo uu dhegaysto dhammaan faahfaahinta iibiyaha aaladda caaqilka, taas oo la ballan qaaday inay la qabsanayaan baahiyaha milkiilahooda. Inkastoo Nick uu aad u mashquul badan yahay, Nick wuxuu ka xanaaqayaa mid ka mida aaladaha inuu baxo ayuu isku dayayaa, laakiin nasiib wanaag aaladaha caaqilka ah mid ka mida oo lagu magacaabi doono Alice ayaa soo celinaysa. Alice waxa ay muujinaysaa habdhaqan wanaagsan waxayna u keenaysaa gabadhiisa isla inta uu Nick wax iibsanayo waxay ku dhahaysaa hadallo kaftan ah, aad ayuuna ula yaabay. Iibiyuhu wuxuu sharxayaa Alice inay tahay moodelkii ugu dambeeyey ee leh ayda ugu casrisan, taas oo u oggolaanaysa inay ku daydaan dareenka aadanaha. Tani waxay ka dhigaysaa inay si gaar ah ugu wanaagsan yihiin carruurta Nick gaabdhiisa isla waxay doonaysaa robotka. Subaxda xigta, Nick waxa uu la halgamayaa quudinta carruurta iyo la tacaalida wicitaanka muhiimka ah ee shaqada. Markiiba Alice ayaa timid oo shaqadeeda qabsatay, iyada oo weydiisatay dhammaan jadwalka qoyska. Waxay ogaanaysaa in guriga uu qasan yahay oo jaranjarooyinku ay dabacsan yihiin. Intaa kadib Nick wuxuu kaxaynayaa carruurta si uu u geeyo dugsiga. Alice waxay bilowday inay hagaajiso guriga, waxay arkaysaa sawirka Nick iyo xaaskiisa wayna baranaysaa qaab dijitaal ah. Dhammaadka maalinta, qoysku waxay ku soo noqonayaan guri nadiif ah, cashadiina diyaar ah. Si kastaba ha ahaatee, isla waxay ka cabanaysaa cuntada sababtoo ah way ka dhadhan duwan tahay cuntadii hooyadeed. Makis wuxuu bilaabay ooyin. Alice waxay soo jeedisay inay kaxayso cunuga si uusan u dhibin inta lagu jiro cashada, laakiin Nick wuxuu doortay inuu cunuga dhabta ku haysto keliya. Wuxuu u sheegay Alice inay diyaariso Makis qubayskiisa. Marka habeenka la gaaro, Alice waxay gashaa nasiino dhanka iyo gidaarka. Isla ayaa qolkeeda si dhuumasho ah uga soo baxday oo waxay fuushay kursi si ay u gaarto weelka buskudka, kadibna way sibxatay weelkii buskudka ayaana jabay. Nick ayaa maqlaya soo dhicida weelka iyo qaylada gabadhiisa, markasuu hoos u soo orday. Nasiib wanaag, Alice waxay qabatay gabadha yar ee isla oo aan waxba gaarin. Alice waxaa soo gaaraya dhaawac sababay burburka dhalada buskudka. Nick aad buu u naxay markuu arkay dhiigeeda. Kadib markuu gabadha isla seexiyey, Nick wuu u yimid wuxuuna weydiiyey inay u baahan tahay dayactir, laakiin Alice waxay isticmaashay faashad gaar ah oo markiiba xirtay goobtii ay ka dhaawacantay. Wakhti kadib qoysku waxay booqanayaan Maggie waxayna isla u sheegtay Alice inay u noqotay saaxiib. Nick aad buu u jeclaa Maggie sababtoo ah aad buu u tabay. Markiiba Nick wuxuu ku soo noqday goobta dhismaha shaqada. Isaga iyo asxaabtiisa waxay ogaanayaan in madaxa shaqaalaha uu tusinayo wakiil ka socda shirkad robotyada ah. Isagoo shakiyey, Nick wuxuu la hadlayaa madaxa shaqaale dhismaha wuxuuna xaqiiqsanayaa runta murugada leh. Shaqaalaha waxaa lagu beddelayaa robot sababtoo ah shaqadii dhismaha ayaa dib u dhacday. Nick lama eriyin sababtoo ah caymisku wuxuu u baahan yahay horjooga bini'aadam ah oo jooga goobta, laakiin wuxuu si cadho leh u joojiyey wiishka wuxuuna ku dhawaaqay inuu raaci doono asxaabtiisa si uu u taageero ayaga. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu beddelayaa maankiisa maadaama uu u baahan yahay lacagta. Waxaa sugaya carruurtiisa iyo biilasha isbitaalka Maggie. Markuu Nick tago guriga, waxaa ka daadanaya waraaqaha biilasha wakhtigoodii la gaaray. Sidoo kale wuxuu eegayaa carruurtiisa. Alice ayaa kor u qaaday baqshadaha iyada oo ogaanaysa sida daran ee uu Nick u daalan yahay. Wuxuu isku dayayaa aamusinta carruurta. Cashada kadib, Nick wuxuu aadayaa gaarigiisa shaqada ee garaashka yaalo wuxuuna bilaabayaa inuu cabbo khamri iyo dhegaysiga heeso si uu murugada isku dhaafiyo. Si lama filaan ah, Alice waxay ugu beddeshay muusig degan waxayna tilmaamtay in Nick uusan wax badan cunin xilliga cashada, sidaas darteed wuxuu u sharxayaa inuu maalin xun ku qaatay shaqada. Alice marka loo sharxo wixii ku dhacay Nick iyo saaxiibadiisa, Alice waxay maamulka shirkadda ugu yeertay munaafaq sababtoo ah wuxuu shaqaalaysiiyey robot. Intaa kadib, Alice waxay ku caawisay isla inay sariirta isu diyaariso. Isla waxay weydiisay haddii hooyadeed ay dhimanayso iyo in kale. Alice waxay isku dayaysaa inay mashquuliso iyadoo tusinaysa iftiinka afkeeda. Kadib waxay ugu tagtay qolka fadhiga Nick halkaasoo uu ku daawanayo Casablanca. Alice sheekooyinka filimada waxay ku garataa kaydkeeda xogta, laakiin Nick waxa uu u sharxayaa inay xasuusteeda tirtirto dhammaan si ay u barato jacayl. Alice waxay u sheegaysaa in garaadkeeda laga soo minguuriyey xusuusta haddii la tirtiro ay noqonayso mid liddi ku ah, laakiin Nick ayaa u sheegay in ay samayso. Si ay isaga masaxdo xogta ay ka haysay filimada ee dhaatada caadiga ah, Nick ayay tusinaysaa botoon qoorteeda dhinaca dambe kaga yaal, waxayna u sheegaysaa inuu hayo muddo 7 ilbiriqsi. Hadda Alice ayaa markii ugu horeysay la kulantay filim jacayl ah, lana falgalay dareemaheeda, waxayna halkaas ka fahmaysaa in qofku uu samayn karo waxyaabo xun si ay u ilaashato jacaylkeeda.
filimka waxaa hakiyey wicitaan ka yimid Maggie waxay u sheegaysaa inay heleen wadne sidaas darteed qaliinka loo qorsheeyey. maalintii xigtay qoysku waxay aadayaan isbitaalka. Maggie waxay weydiisatay 1 daqiiqo inay keli noqdaan Alice iyo ayada. Maggie waxa ay ka warwarsan tahay in Nick uu waqti badan la qaato carruurta oo aanu naftiisa si fiican u daryeelin. Sidaa awgeed waxa ay doonaysaa in Alice ay ka caawiso Nick inuu farxo xataa haddii ay ku qasban tahay inay samayso waxyaabo aysan jeclayn sida inay khamriga kaga qariso dhankaas iyo garaashka. daqiiqada kadib dhakhtarku wuxuu keenaa war xun. waxaa jira duufaan ka hortagaysa helikobtarka wadnaha sida inuu yimaado isbitaalka, sidaas darteed qaliinka waa la joojiyey. Nick wuxuu isku dayaa inuu naxariis dareensiiyo Maggie laakiin waxay rabtaa inay keligeed noqoto. markii dambe ee guriga la yimid Nick wuxuu sii waday inuu cabbo oo ka sheekeeyo wixii dhacay. wuxuu bilaabay inuu lumiyo xakamaynta naftiisa. Alice waxay isku dayaysaa inay dareen la qaadato Nick. Nick wuxuu tuuray dhaladii qamriga. Alice ayaa celisay isaga oo gacanta qabatay. Nick aad ayuu u naxay markii uu garaaca wadnaheeda gacanta ka dareemay. sidaa darteed Alice waxa ay u sharaxday in ay leedahay wadne macmal ah. sidoo kale waxay u sheegtay in ay ku raaxaysato garaaca codka wadnaha. intaa kadib waxay gacmaheeda la aadaysaa asaga waxayna bilowday inay dareen ka raadiso iyada oo kala hadlayso sida garaaca wadnaha iyo xididada dhiiggu isula falgalaan. Alice ma rabto inuu mar dambe silco ninkan. Nick wuxuu dareemayaa in weerar lagu yahay laakiin wuu iska qabanaya meesha ayuuna uga tegayaa sida ugu dhaqsaha badan. Nick wuxuu u soo ordayaa dhanka isbitaalka wuxuuna malaysan kari leeyahay sida aaladan ay ula dhaqantay. markii uu yimid isbitaalka Maggie waxay bilowday inay siiso talooyin badan Nick si uu ugu gudbiyo carruurtooda. waxay si cad ugu sheegaysaa inaysan rajo fiican lahayn maadaama khaliinkeeda u baaqday cimilada darteed. habeenkaas Nick wuxuu ku soo laabanayaa guriga wuxuuna ogaaday in sawirada Maggie ay ka maqan yihiin tabletka Alice ayuuna weydiinaya. Alice waxay u sheegaysaa inay meesha ka saartay sawirada Maggie maadaama ay ka murugootay laakiin waxay isla markiiba dib ugu celisay halkoodii kadib markii uu Nick ku amray. Nick wuxuu soo aaday asxaabtiisa shaqada si uu qamri ula soo cabo. kooxda oo dhan aad bay u niyad jabsan yihiin sababtoo ah waxay la dhibaatoonayaan shaqo la'aan maadaama shirkadaha intooda badani keensadeen robotyo. markiiba waxa uu imaanayso kabalyeeriyad robot ah miiskooda. Monty wuu ku qayliyey. Nickna dalab marabno ayuu ku dhahay. dabadeed kooxdu waxay ka baxayaan baarka ayagoo ka dhacsan gaarigana ku dhex cabaya. Monty ayaa soo jeedinaya inay helaan xoogaa madadaalo ah oo ay aadaan goobta dhismaha isagoo ku andacoonaya inuu agab kaga soo tegay goobta shaqada. Nick waxa uu xasuusinayaa in aagga la ilaalinayo laakiin Monty wuu iska indha tiray. kooxda inteeda kalena way raacday. Monty wuxuu helay konteenarka lagu hayo robotka laakiin wuxuu u baahan yahay lambar sireedka irida konteenarka. Nick wuu diidayaa inuu u furo iyaga laakiin Monty wuu qiyaasay koodhka u gaarka ah wuxuuna ku tijaabiyey sanadka dhalashada gabadha Nick ee isla. male awaalkiisu waa u saxmay oo konteenarka dhexdiisa waxa uu ka helay robotyo badan oo isku eg. robotka ugu horeeyo wuxuu sharxayaa inaysan lahayn magacyo keliya lambaro loogu yeero. Monty waxa uu bilaabay in uu wax ka sheego robotyada wuxuuna ku yiri waxaa tihiin wax aan noole ahayn. kadib waxa uu bilaabay in uu burburiyo robotyadii. Nick ayaa isku dayay inuu ka celiyo laakiin kuwa kale ayaa celiyey. markuu Nick guriga ku soo laabto wuu qubaysanayaa si uu dhiiga robotyada isaga dhaqo. isla markiiba Alice ayaa u soo qabanayso shukumaan. Nick wuxuu ogaaday inay xidhan tahay dharka jiifka xaaskiisa Maggie. Alice waxay u sheegtay Nick in ay ku seexiso wiilkiisa yar ee Makis. asaga wuu ka argagaxay arrinta. Nick wuxuu isku dayay inuu baxo laakiin Alice ayaa ku celisay halkiisa oo ka saartay shukumaankii ka hor inta aysan fadhiisan dhabtiisa. markay ay bilowday inay dhabtiisa ku soo fariisato Nick wuxuu isku dayaa inuu dhaho ma samayn karo arrintan. markaas Alice way iska indha tirtay hadalkiisa oo waxay beddelatay codkeedii. waxay u hadashay sida Maggie. marka Nick wuxuu naftiisa ka dhaadhiciyey dhalanteed Alice ayuuna la qaatay dareen. subaxdii xigtay Nick wuxuu la soo toosay qoomamo wuxuuna u sheegay Alice inaysan mar kale samayn karin arrintaas. waxay isku dayday inay u sheegto in walaaca ay ka dhimayso laakiin Nick ayaa canaantay haweenayda robotka ah isaga oo u sharxaya inaysan ku saabsanayn baahiyaha oo ay ku saabsan tahay qoyskiisa. Nick waxa soo wacaya madaxa shaqaalaha oo durba wargeliyey booliiska sababtoo ah dhammaan robotyada waa la burburiyey. Nick waa laga shakiyey sababtoo ah lambar sireedkiisa ayaa la isticmaalay. sidaas darteed wuxuu u sheegay inuu isbitaalka kula jiray Maggie iyo in koodkiisu uu ahaa dhalashadii isla. wuxuu tilmaamay in saaxiib kasta qiyaasi karo. maamulaha kuma qanacin oo wuxuu ugu hanjabay inuu shaqada ka cayrin doono Nick haddii uu been u sheego. isla markaas Nick waxa soo wacay Maggie oo aad u faraxsan sababtoo ah waxay ugu dambayntii heleen wadne kale. isla markiiba waxaa loo diray qolka qaliinka halkaas oo dhammaan dhakhaatiirta qaliinka ay yihiin robotyo. nasiib wanaag khaliinka ku talaalida wadnaha waa guulaystay. maalmo yar gudahood Maggie ayaa loo diray guriga. jidhkeeda weli waa daciif. waxay isku dayaysaa inay gogosha ka soo qaado cunugeeda yar ee Makis. markiiba Alice ayaa ka caawisay.
intaa kadib Alice waxay Makis u qaaday beerta waxayna aragtay ilmo khariban oo ku qaylinaya robot kale taas oo ka dhigaysa Makis inuu ooyo. Alice waxay ilmaha ku canaananaysaa erayo qalafsan oo dhammaan robotyada aagga jooga la yaabaan iyada oo moodaysa in la waxyeelaynayo cunuga milkiilaheeda. Si kastaba ha ahaatee Alice ayaa u sheegayso robotyada mid ka mida inay tirtirtay xogteedii hore iyada oo uga mahadcelinayso Nick xogta cusub ee uu baray. Habeenkaas gabadha yar ee isla waxay ku faraxday inay cunayso cuno ay hooyadeed Maggie samaysay. Alice waxay weydiisatay inay barto laakiin Maggie waxay u sheegtay inay tahay sirta qoyska. Maggie ma dareemayso fiicnaan halkii ay wax cuni lahayd waxay go'aansatay inay nasato. Subaxdii Maggie way toostay markay maqashay isla oo ku qaylinaysa Georgie oo hoos u carartay laakiin ayadii dhacday. Alice waxay soo qaaday Maggie si ay ugu celiso qolkeeda. Markuu Nick shaqada ka yimid wuxuu arkay Alice oo isla u akhrinaysa buug iyadoo adeegsanaysa codka Maggie wuxuuna ka codsaday inay joojiso arrintaas. Alice waxay xustay dhicitaankii Maggie oo Nick wuxuu ku degdegay si uu u eego iyada halka Alice ay u sheegtay in jaranjaradii jabtay. Tani waxay ka dhigaysaa Nick inuu shakiyo maadaama uu moodayay in Alice ay mar hore hagaajisay jaranjarada. Dhowr saacadood kadib Nick wuxuu kiciyey Maggie beerta ayuuna u kaxeeyey asagoo garab ka hayo halkaas oo uu u diyaariyey casho jacayl iyo arrin lama filaan ah. Alice waxay ka daawanaysaa daaqada iyadoo ka masayrsan lamaanahan. Cashada kadib lamaanahan ayaa wada qaadanaya qubays wada jir ah. Nick iyo Maggie ayagoo qubaysanaya wakhtina wada qaadanaya waxaa soo dhex galayso Alice oo waxay u sheegaysaa in gabadhooda ay qarowday. Intaa kadib marka isla la daryeelo Nick wuxuu aadaa beerta si uu u nafiso waxayna kulmayaan saaxiibkiisii Monty. Monty oo u muuqday mid cabitaan badan cabay ayaa ka cudur daartay habeenkii waxa uu sameeyey sidoo kale wuxuu u sheegayaa inuusan la wadaagin xaaskiisa. Waxa kale oo uu u sheegaya in ciidamada boolisku ay su'aalo ka weydiinayeen arrinta robotyada isla markaana madaxda shirkadu ay dacwad ku soo oogayaan ku xadgudubkii burburinta robotyada. Monty wuxuu moodayaa in Nick uu sheegay shaqadiisana uu dartii u waayey. Muran ayaa ka dhashay intii uu Monty ka dhawaajiyey feer ayaa lagu dhuftay Nick. Dagaal kadib Nick Monty ayaa si dhaqso ah uga adkaaday oo bilaabay inuu haraatiyo. Monty waxa uu soo qabsaday dhalo si uu nafta uga qaado saaxiibkii laakiin waxa ka celisay Alice oo jebisay dhaladii kadibna garaacday Monty. Alice oo dhammaystiri rabto Nick ayaa ka celiyey. Monty inta uusan bixin wuxuu ku leeyahay u sheeg madaxa shaqaale inuu dacwada la laabto haddii kale adiga ayaan ku dilayaa waxaad haysataa ilaa barito. Alice sidoo kale waxay u sheegaysaa inay ilaalinayso milkiilaheeda. Intaa kadib Alice waxay gurigiisa ku weeraraysaa Monty oo gurigiisa ku haysto robot wada hadal kadib waxay markiiba ka takhalusaysaa robotka kadibna Monty ayay meesha ku dilaysaa. Maalintii xigtay Nick wuxuu aaday shaqada wuxuuna isku dayay inuu ku qanciyo maamulihiisa inuu joojiyo eedeymaha markiiba wuxuu ogaanayaa in Monty uu dhintay. Dhanka kale Maggie way dawaqsan tahay markay isku daydo inay buug soo qaadato Alice ayaa u soo qabanaysa. Maggie waxa ay doonaysaa in ay si nabad ah ku qubaysato laakiin Alice way u diiday in ay qubays aado sababto ah waxay murugada u diidan tahay Nick maadaama uu ka murugoonayo haday wax gaaraan xaaskiisa. Alice waxay Maggie ku eedeynaysaa inay culays saarayso qoyska oo dhan maadaama aanay buuxin karin baahiyaha jireed ee ninkeeda. Maggie ayaa weydiinayso sida ay taas ku ogaatay. Alice waxay u sheegtay inay og tahay wax badan. Maggie ayaa inay ka xanaaqdo waxay ku amraysaa inay ka baxdo guriga oo ay aado dhanka garaashka. Daqiiqado kadib Nick ayaa yimid guriga Maggiena waxay sugaysaa asaga si ay ugu qasabto inuu runta sheego. Nick waxa uu qiranayaa in uu hal mar la sameeyey Alice. Muran ayaa ka dhashay iyo qaylo badan taas oo Alice ay maqashay. Alice waxay soo qaaday cunugii Makis meel intay ku riday ayay tubada biyaha ku furtay iyadoo ka caraysan qaylada iyo buuqa lagu hayo milkiilaheeda oo ay dareen xoog badan u qaaday waxay xiratay albaabka. Nick wuxuu isku dayayaa inuu soo jebiyo halka Maggie ay doonayso inay daaqada ka soo gasho. Maggie daaqada ayay ka soo gashay sidoo kale Nick albaabka ayuu soo jebiyey. Maggie marka waxay isku dayday inay badbaadiso cunugeeda laakiin Alice waxay eeji kula qabatay derbiga. Nick ayaa ugu dambeyntii cunaga ka soo saaray meesha qubayska isaga oo uu sii gudbiyey gabadhiisa isla ka hor inta uusan Alice ku dhufan madaxa si ay u sii dayso xaaskiisa. Wax yar kadib Alice mar kale ayay istaagtay iyada oo dhaawac wejiga ka soo gaaray. Nick oo mar kale weeraray ayaa ku weeraray fadhiga laambada weyna iska qabatay. Markaas Maggie waxay la hadlaysaa Nick si uu ugu sii daayo fadhiga laambada markiiba wuu u daynaa. Ugu dambeyn koronto ayaa loogu qabanayaa Alice inta danto ayay meel ku dhacaysaa. Nick waxa uu raali geliyey Maggie wuxuuna u sheegay in ay aado isbitaal ayada iyo carruurta. Dhanka kale Alice waxaa la geynaa dukaanka dayactirka halkaas oo farsamo yaqaan uu furayo madaxeeda. Mid ka mida shaqaalaha wuxuu arkayaa in gacanta Alice ay dhaqaaqayso markii laga saaray aalada xusuusta. Markiiba waxay ku xirayaan kombuyuutarka waxayna ogaanayaan in wax ka qaldan yihiin robotka. Isla markiiba shaashaduhu waxay bilaabeen inay biligleeyaan waayo markaan waxaa nidaamkii badashay Alice way la wareegtay dhammaan nidaamka robotyada.
farsamayaqaanada ayaa ka saaraya kombuyuutarka aaladeeda xusuusta, laakiin Alice waxay maamulka u qabatay robot meesha taagnaa waxayna dilaysaa raggii farsamayaqaanada ahaa. Dhanka kale Nick wuxuu joogaa baarka si uu u cabo khamri, wuxuu u dirsanayaa mid ka mida kabalyeeriyada baarka oo robot ah. Isla markiiba Alice ayaa timid, iyadoo si xun u hadlaysa sababtoo ah wejigeeda ayaa weli dhaawac ah. Waxay u sharaxday in waajibkeedu yahay inay Nick ka farxiso, waxayna qiratay inay dishay Monty, sidoo kale waxay u sheegaysaa inay maamulka u hayso dhammaan robotyada. Nick ayaa ku qaylinaya Alice kadibna inta u dejiyo ayuu isku dayayaa inuu ka saaro aalada xasuusta, markiiba wuu ka soo cararayaa dhanka isbitaalka ayuu u soo dhaqaaqayaa asaga oo wato gaari. Dhakhtarka isbitaalka wuxuu xaqiijinayaa in Makis uu fiican yahay, laakiin Maggie kuma qancin sababtoo ah waa robot. Dhanka kale isla waxay maqashay codkii hooyadeed oo ay raacday iyadoo nalalku midabadoodu bedelmeen. Dhakhtarkii robotka ahaa shaqada ayuu joojiyey. Halkan waxaa ku soo wajahan robot ay maamulayso Alice taasoo dilaysa cid walba. Isbitaalka markay gudaha u soo gasho Maggie iyo gabadheeda way isqarinayaan. Kalkaaliso ayaa isku dayayso inay la hadasho robotka waana Alice 2, halkaas ayaana kalkaalisadii lagu dilayaa. Alice 2 waxay isticmaalaysaa kaarka kalkaalisada si ay u hesho qolka max lagu hayo. Maggie iyo gabadheeda waxay isku dayayaan shanqar la'aan inay baxaan oo ay gaaraan cunuga yar ee Makis si lama filaan ah ayagoo guurguuranaya. Waxaa Maggie mudaya muraayadaha jajaban ee daadsan dhulka, laakiin ma aanay qaylin. Intaa kadib Maggie iyo isla waxay gaareen qolka Makis waxayna ka qaadeen sariirtiisa. Markiiba Alice 2 ayaa soo gaartay qolka. Si kastaba ha ahaatee dhiiga dhaawaca Maggie ayaa ku daadanaya dhulka. Alice 2 waxay isticmaalaysaa iftiinka afkeeda si ay u raacdo dhiiga daatay. Markii ay soo gaarto, Maggie waxay adeegsanaysaa dabdemis si ay u mashquuliso ugana cararaan. Maggie waxay hilmaamtay taleefankeeda waxaana soo wacaya Nick oo si waali ah gaariga u soo wado. Maggie iyo carruurteeda bannaanka markay soo gaaraan waxay ku arkayaan robotyo badan kuwaas oo la wada damiyey. Markaas ayay mid ka mida ka qaadanaysaa kaarka iyo furaha ambalaasta. Markay gudaha u gasho waxay isku dayaysaa inay wado gaariga. Waxaa ka joojinaya gaariga Alice 2 maadaama ay nidaamka oo dhan maamulayso. Alice 2 ayaa halkooda ugu imaanayso waxayna Maggie ku tuurtay gaadhiga korkiisa waxayna qiratay inay rajaynayso in Nick uu u jeclaado sida uu u jecel yahay Maggie. Alice 2 ayaa qoorta ka qabatay Maggie waxayna cidiyaheeda ka gelisay bartii qaliinka. Isla markiiba waxaa soo gaaray goobta gaariga Nick. Maggie ayaa nasiib wanaag haraati la tuurtay Alice 2 oo u dhigtay gaariga Nick, sidaa ayaana gaariga lagu marsiiyey.